waa barnaamijkii ugu horeeyay ee channelkan aan soo gelino, waxaan rajayn doonaa in channelkani uu ku koobnaado su'aalaha iyo jawaabaha, weliba si degdega si aanan marnaba qofna jawaab la'aan uusan u noqon. Su'aalaha xoogga aan saari doonana waxa ay noqon doonaan kuwa public ah oo dadka oo dhan ay ka faa'iidi doonaan. Qofkuna waa inuusan su'aal shakhsiyadiisii ku saabsan waa inuusan codsan in public la keeno. Waxaadna su'aalaha igu soo diri kartaan commentiga cinwaanka Instagram-ka ugu sareeya. Aynu ku bilowno su'aasheenii koowaad iyo muuqaalkii ugu horeeyay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum walaal, waa walaalkaas Soomaaliyeed oo jooga Germany. Ma rabo in aan magaceygii aan sheego. Waxaan wataa 2 su'aalood. Tan koowaad, waxaan ahay nin dhalinyaro ah, waxaana rabaa inaan raganimada iska saaro ama dareenka raganimo. Kama wado inaan dumar iska dhigo, balse waxaan rabaa taa beddelkeeda xooggayga iyo waqtigayga inaan cibaado Alle uga faa'iidaysto. Tan labaadse, ma bannaan tahay in dareenka la iska tirtiro ama la isdhaafiyo? Salaan sare walaal. Qur'aanka Kariimka waxa uu leeyahay qofka in jirkiisu sida uu Alle ku abuuray inuu wax ka beddelo waa dhaqanka shaydaanka. Mana bannaana qofka in jirkiisii uu dooriyo sida ku xusan suuradda Nisaa. Saxaabigii Cabdullaahi ibnu Cumar waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aad u jecel cibaadada. Maalin ayuu Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee intuu u yimid ayuu ku dhahay, Rasuulkii Allow, waxaan doonayaa inaan in badan cibaadaysto, maalin kastana waan soomayaa, habeenkii oo dhanna salaatuleyl ayaan u taagnaanayaa. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee marka uu hadalkani ka maqlay Cabdullaahi ibnu Cumar waxa uu ku dhahay, sidaa ma samayn kartid. Maalin kastana ha soomin, maalmaha qaar wax cun, maalmaha qaarna soonka wado. Habeenkiina habeenada qaar iska seexo oo salaatuleyl ha tukanin. Camaladuna waxaa ugu fiican uguna qayrka badan kuwa la joogteeyo haba yaraadaane. Qofka muslimka ahna waa uu jeclaan karaa in noloshiisii oo dhan cibaado iyo in Alle gooni uu u noqdo, kana badbaado shahwaadka nooc walba oo ay noqoto. Balse shahwooyinka qofka ku xiran ayaaba ah imtixaan lagu kala fiirinayo haddii uu raacayo qofka ama in kale. Si kooban, arrintani jirka bani'aadamka in isbeddel lagu sameeyo sida uu Alle ku abuuray ma aha mid bannaan. Su'aasha kale. Assalaamu calaykum Cabdirashiid. Magacaygu waa Axmed Yuusuf Maxamed oo jooga waddanka Switzerland. Waxaan ku weydiinayaa, internetka markiisii hore maxaa laga sameeyey? Waad mahadsan tahay. Internetku dadka badankoodii waxa ay moodaan wax hawada iska socda. Tani sababteeduna waa in badankeeni wifi aynu isticmaalno. Internetku waa fiilooyin dhaadheer ee qaaradaha adduunka oo dhan isku wada xira. Waxa ayna ka gudbaan fiilooyinkani badaha iyo dhulka hoostooda. Xitaa magaalooyinka qaar ee maanta weli internet ma uusan gaarin. Balse bilowgii aaladda internetka, koox yar oo arday ah ayaa waxa ay kombiyuutarada ku sameeyeen program kaas oo sida Bluetooth-ka oo kale oo 2 kombiyuutar isku xiri kara. Marka 2 kombiyuutar la isku xiray kadibna waxaa la bilaabay in mashruucani si aad ah loo ballaariyo, 100 kombiyuutarna la isku xirxiro. Mashruucani oo bilowgiisii arday jaamacad loogu talagalay ayaa waxa uu isku beddelay mid lagu wada xiriiro oo dhammaan adduunka oo dhan lagu baahiyo. Intaa kadibna waxaa la sameeyay website-yo, waxaana la isku dayay in macluumaadka internetka ku jiro taraafigoodii la qaabeeyo. Si kooban, internetka asalkiisu waxa uu ka bilowday program sida Bluetooth-ka oo kale oo aaladda kombiyuutarka u suuragelinaysa aalad kale in ay ku xiranto. Kadibna dunida marka lagu baahiyey waxaa soo ifbaxay satellaajyo iyo in fiilooyin kala duwan oo dhaadheer oo qaaradaha adduunka isaga kala gudba. Su'aasha kale. Assalaamu calaykum Macallin Cabdirashiid. Waxaan ognahay inuu Ilaahay 7 samo iyo 7 dhul inuu abuuray. Haddaba samaawaadku waxa ay leeyihiin magacyo, sidoo kalena waxaa ku dhex nool makhluuqaadka uu Ilaahay abuuray sida malaa'igta iyo ambiyada. Laakiin dhulkuna ma sidaas oo kale mise wuu ka duwan yahay samada? Bal wax iga fahamsii. Mahadsanid. Dhulka aynu ku noolnahay inta la og yahay ee dadaalka bani'aadamka lagu gaaray, wax ku nool oo bani'aadam ah ma ay jiraan. Arrintanina maadaama kitaabka Qur'aanka iyo sunnada aanan lagu sheegin in dhulka lagu nool yahay, ma jirto wax dheeraad oo tilmaamayo in dhulka hoostii sida samada oo kale in lagu nool yahay.
Su'aasha kale, assalaamu calaykum walaal, magacaygu waa Jaamac Bashiir oo ku nool magaalada Garowe. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal, ma wax run ah baa reer aakhiraadka oo caadi ah baa? Teeda kale, waa maxay farqiga u dhexeeya jinka iyo reer aakhiraadka? Wax xiriir ah ma ka dhexeeyaa? Mahadsanid, waxaan filayaa inaad igaga soo jawaabtid ustaad. reer aakhiraadku sida asalka ah ma aha wax xaqiiqa oo jira, waa wax dadka waagii hore ay rumaysnaayeen, kaasoo ah in dadku marka ay dhintaan, khaasatan ruuxda dadka xunxun waxa ay rumaysnaayeen si ay uga aargoostaan dadka noolnool ee weli aanan dhiman, in guriyaashoodii inta ruuxdoodii ay soo gasho ayay dadka dhiigga ka dhuuqi jirtay. Waana wax maanta keliya dadka looga cabsiyo, kumana dhisna wax xaqiiqa, balse jinnigu waa ummad sida bani'aadamka oo kale oo dhulka inugula nool, iyaguna sideenii oo kale ayay jinniyaashu wax u rumaysan yihiin. Su'aasha kale, assalaamu calaykum walaal Cabdirashiid, magacaygu waa Ayuub Axmed, waxaan joogaa Scotland, UK. Aad baan kaaga mahadcelinayaa mowduucyada cilmiga ku dhisan ee aad inoo soo gudbiso. Waxaan rabaa inaad 2 su'aal igaga jawaabto. Su'aasha koowaad, waxaan badanaa arkaa qof isla hadlayo, nafsad ahaantoodiina qofka isla hadlayo ma aha qof waalan, haddana marka aad fiiriso wuxuu iskula hadlayaa sida inuu waalan yahay oo kale, maxaa lagu tilmaami karaa? Su'aasha labaadna, waa maxay dadka la yiraahdo Bahaa'iyiin aaminsanna diinta la dhaho Bahaa'iya? Mahadsanid. Bani'aadamku waa noolaha keliya ee sooshiyaalka ah inta dhulka saaran. Qofkuna sida cuntada uu ugu baahan yahay oo kale ayuu sidoo kalena hadalka ugu baahan yahay. Tijaabooyin badan oo cilmi baaris ah ayaa waxaa lagu sameeyay dadka maxaabiista ee sanado badan qol kaligood ku jiray, waxaana la arkay qofka sida uu muddo u aamusnaan jiray isaga oo aanan waalnayn, inuu bilaabay qofka inuu isla hadlo. Xitaa qaarkood waxa ay bilaabeen in darbiga ay ku sawiraan suurado bani'aadam ah, kadibna ay la sheekaystaan ama magacyo ay u bixiyaan iyaga oo aanan waalnayn, waayo hadalku qofku waa wax baahi oo kale u qabtaa. Dadka qaarkoodna marka niyadoodii ay ka sheekaysanayaan, qaar kale ayaa jecel in hadalka cod ahaan oo kale ay u beddelaan. Xitaa maqaal BBC-du ay baahisay 2017 ayaa waxaa lagu sheegay dadka isla hadla marka ay keligoodii yihiin waa dad guusha u janjeera marka loo fiiriyo dadka kale. Maqaalkani waxa uu tibaaxay qofka marka uu keligii isla hadlo in dhabaqa afkii ka soo baxayo in maskaxdu ay keedinayso, qofkuna wixii uu ku sheekaysto ama keligii uu iskula hadlo si fudud kuma uu iloobayo. Balse caadada dadka dhexdooda ee caanka ka ah ayaa ah in qofkii keligii isla hadlaaba in waali lagu tiriyo, balse arrintaasi sax ma aha. Qof walboo isla hadlaa ma aha qof waalan. Qaybta labaad ee su'aasha, waa maxay dadka Bahaa'iyiinta loo yaqaano? Bahaa'i waa diin monoisti ah oo Iiraan laga aasaasay, waxa ayna qabtaa in dadka oo dhan hal asal ay ka wada imaadeen, diimaha oo dhanna hal asal ayay ka wada imaadeen sida diinta ay qabto, balse xaajada iyo baahida dadka darteeda ayay diimuhu u soo kala degeen. Sidaasi darteedana diin qaldan dunida ma ay jirto ayay qabtaa Bahaa'i, waxaana kutubtoodii ku qoran macluumaad badan oo nebiyadii hore iyo Qur'aanka ay ka soo koobigareeyeen. Ugu dambeynna waxa ay isku sheegeen in iyagu ay yihiin, gaar ahaan dadka Bahaa'iyiinta, inay haystaan diintii ugu dambeysay, balse dadkani Bahaa'iyiinta marnaba ma ay qabaan nebigii ugu dambeeyey. Waxa ay rumaysan yihiin in xilli walba xilliga soo socda, in 20 sano kadib ama 5 sano kadib xitaa in nebi cusub uu imaan karo, waayo mar walba oo nolosha isbedesho waxaa laazim u ah iyagu in nebi cusub uu soo baxo. Ninkii ugu hore ee Bahaa'itullah ee aasaasay fikirkani monoistigana imbaraatoriyadii Cusmaaniyiinta ayaa dardaleen, ilaa maantana fikirkiisu waa mid jira, waxaana la qiyaasayaa adduunka oo dhan 5 milyan oo qof oo keliya in ay rumaysan tahay.